هذا داش ايوه دمش ايوه في عنه بخير الحمد لله وفي عنه ما شاء الله. والله ترى صاحبك وقت ساكن نقصوا وعي تليفونك محكا دع دمش تلفونك xumaan uguma dhageysanaynin waan waayay telefoonka waxaan u maleynayaa inay dhimasho iga xasayso iga xareysay marka waa la ahay marka والله تليفونك marka ka walwala si wada walwal bas ba furnaayo marka may farin waxa iga gaarsiisaa inuusan walwalin telefoonkana waan raadin waan soo wixii walahi kan caas faacay soo kala fikraa waa yaabay saad ku dareenayo ya nimasa ay amaanaysa ha والله خيال iga ma waa run daacad waxa iska arkay soo soo qaawil wala kala fikraa may waarka inuu nin fiican yahay anbuu ogahay oo hadalkiisa iyo wada sheekaysigiisa ka faahsana maanta kaliya telefoonka xoogaa aan la asanahay aan waaye oo والله ما hala kaliya ka goodo yaabay saad inta soo kaliya ka gooday ya waxa ku dhahdaa telefoonka ku soo wixii insha Allah soo wixii kullu hadan in meelahan liigu arka ma rabe adeegan doonayo banaanka aadayay hayo waynu hodowde hayd bash hay thank you إن شاء الله تمشي ذي مدة إنكار قبضة لا تلفونك إيجا سوق هذا كله أنت ما كنت إنك فايدستي فلان فيري مسك ولا سوق و يعني سيد إيسا واحد والله بالله أنا جا واحد كل الناس هلا قلبي ما والله ساس maahan maxaa soo farinta lagu ma soo sheegin ha maxaa saaxiibka iska hor imaanay safarinta kugu soo dhiibay soo ismiin arkin ha sas ma hadu ku sheegaa wixii dhacay wax weyn ma ahano waa ogtahay suma horan kugu sheegay meesha aan joogo inaysan ahayn meel xoogaa xaaladeeda sahlan ilaahay baa igu diray dumashadii ma aqaan wax iga dhax aragtay way fiicnaan leedo wallahi bilam ana diidi lahaaba ayada iga dhax saartiyo walaalkeyga ma qalbi macaan saas ma ahan ma nolosheeda saas u hadlin ani mar walba wad helaysaa waqti walba saacad walba daqiiqad walba maadaama hadda xoogaa yar aan telefoonka iga qaado iga xasayso iga qarisay hadda waan ka helahaa intee maqan rabo inaan ka faa'iideysto ma isas ma hay waa arin aan ku farxa wiligiiyo meel qurux badan lagu geeyna ama gurigaana laga saara qof idahayba ma jirto ka walaalkeygana shaqo ku mashquulsan islaantaana halkaanay tay benjilaysaa dhaysa waxaana ah shaqada igu disho waa badaalay diyaar wahay ma diyaar waa okay waa meeshaad igu sugaysa aniga imaanay ma ana aqoonsa u soo baxay adii ka seexataa hay nolosheedu waay thank you bye I'm going now out today I have a date wax gabeed wariya safiyo qolka kale kuma jirta xageed wariya safiyo wallahi alaabta barta uga tagay taalaay sabab Allah ana gacan galay taasu jaanis beesha banaanka ugu baxdo inaan guriga ku qunfalay ahayd maalinta arkay taasu naagta in kaar qabsad inay ag taagantaa oo inay saqayr soo wadin kaar qabihi la dhashaa igu dara asaguna mas'uuliyad buu usan qaadi karin buu dhabarka saartay bal hada naagna yeeyo kala baratay xagee la geenayaa wiya islaan holhooda leeyahay hada waatan waxaan u sheegay wuxuu kordhinay waa marax qof jilicsan ku ka dhinta qof jilicsan oo qayr lagu ligi maaray qayr darro u dhimaade ay kaaga daranta maalmahan hawshay rabtaa inay ka dhumato ururkii beentaana maalmahan igu fahmaa halo oo fiican soo tahaaj alxamdulilah labnaan khayr sheeg fiiri khayrka markii la sheegi jiray way soo dhaaftay fiiri gurigan waa horaan waxaan ku iri mas'uuliyad aadan qaadi karin baa taalo horaan kuugu sheegay aniga
waxaa dhacay waxaan ku yiri gabadhii walaasha ahayd gurigan maalintii naagtii barata horta ugu dambeysay ay caad u joogto way maqantaa ma joogto muddo 2 saac ay hadda sii maqantaa taleefanka wuu isoo kaga gal diiday hay 2 saac aan raadinayaan ku dhahayaa hadalkiina faanti isku day waa la ahay saxaabta baranaysa maxay ahayd waxaan kala hadlay gabadha saxaab baranayso ma saxaabta ugu dhowda waa islaanta musiibada ahayd gurigan joogaa naagta hadday magaalada barata bas weeyaan gurigan cid shaqa ka qabanaysa malaha sheekadan uruurka waa isku soo dhammaanaysaa yaa sifaan naagtan guriga ugu celin lahaa isan guriga uga bixi lahayn waa inaan falankeeda qabtaa hee may naagtas teleefon ma qabanayse in anigu fakataan ma ka baqaya meel daran aadee ama naagtii guriga ku xaraysatee taas miyaa gurigeeda tagaya maanta dhutan soo garaacnay naagta adaa la dhashay cisho walaa la ceshanaysid non aniga way iyasaysaa maalmahanba 10 jeer aan ku yiri naag gurigeyga ha keenin hadii kale ayada ka shalaayayso annaga balaayo iyo shido nool guriga soo dhex dhigana adiga kaale halka gabadhan kaaga tagay maad in xalin kara dana wallahi ya boy waxaan ku weydiiyay qof majnuun xirxiran ma ay keenta aniga sanaag weyna igu faco igu xoogaad ii keenta aniga oo hadda ku keen magaalada kala garanaysa adiga ma xalin kartid miya ma qof asaga baxayan cilciliya halkaas wallahi walaasha ha ku qaylinin halla hadin saahadin ha ka xaabi hadda mar 10 jeer baan ku yiri gabadha wajigeeda waji fiican uma ekee ilaali waardiye wallahi ka saanay igu qaylinaysa warada ku soo wada aniga gabadha walaasha naag doqodo kuleega aniga igu qaylinaysa dadka waardiye ka leeda iidma tuug baa maxaa laga waardinay sheeg hada ayada weydii hadda aniga su'aasha weydinin ayada tagtay xageebe magaalada ma kala garanayso waana dumar halka intee u raadiyay sheeg halkeen ka doonay sheeg mas'uuliyad adigu aad gabta aniga igula ma qaylin kartid yaa walaasha waa anoo kale waa naag weyn 10 jeer baan ku yiri ha bixid meelaha aadin naag ha baranin 10 jeer aan ku yiri yaa naag baranay ayada halkaas maxay maanta aan ku sheegay aan ku laang musiiba ay barato wallahi billahi labadiina saasaad madaxayga gashay madaxaad iga cunteen intaad ma ila iga soo bixin rabtaan waa ugu talagash waxaan ugu talagalay ma jirto waa ugu talagash naagtan guri iyo meel ay adab ku leedahay aabeed uga warqabay joogto waxa soo kaxaysat abidka ay ka sheekeynayso ilaahay waa ka soo baxay ku qurux badnaa inay ku sii jirto adina iga sii badbadinayga amsa waa laga sii badbadina iguma qaylin kartid aniga ee naagta inta raadsid tartiib inta gabadha u raadsid ordkeen xagee u raadinaa markaad keentana waxaad tiraahdaa irid jaan cirma shidhigta maxaa ka naqaan anaga yaab ishida aragnay hayo waa tan hadda sana soo fariiso soo fariiso safka sama ku soo afariisatay sama aqli moodo xagee ka timid waa tan hadda awal ba waxaan ku yiri telefoonka la siiya dhibaatada keenay xagee ka timid xiliga xagee ka timid adeega hoose naagta adeega aan ka soo qaaday wax kar imaada dhig adeega hoose maxay dhadaan hadda markii 4 saac hadda maxay dhadaan 2 saacadood meeshaan yar ma ka dhex raadin weys adduunyada kale ma ka dhex raadinaysa 2 saacadood waa tan naagta adeeg ka bacdi ma saar ma isla jiro 10 jeer maanta ku noqday haye wax ka dheh 10 jeer maanta ku noqday ulaale jooji bent runta sheeg meeshaad ku maqnay sheeg ulaale maanta taas dhuumasha ka ansixi mayso arrinkan wax ka dheh jawaab saxan iga sii abu naagta hoos gurigeen hoose adeega gadan ka imaaday naagtay aad iga raadisan wax alla inta adeeg ka qaadano waa amsi kala adeega jikadan geli ya hadda wala soo gal jikadan geli buuqiina maqlo waa nigu soo leexday maxaa ku qaylinaysan haye adeega jikadan geeye haye maxaa dama wax kula san allah ninkaan jilicsana alla jilican kugu nacla ilaahay 4 saac naagta adeega ma lagu maqnaada safki dhigeyso 3 jeer baan u tagay gabadha 3 jeer naagta adeega oo naag soo hayay maxay ku dhahay ma arki bay u tiri way taqaana ma arkin ha runta sheeg hadda musku raacayna musoo weydin ma arkin say bas ikaadi boos igalaade fiir safka saan aqli ma kula tahay hadda aqli ma kula tahay waxaan sameeynan ma abool igu qeylinaya fiiri hamina ku sheega mar walba in la safka saas sameysay safka xaa ka baxay safka naagta sala saxeetay safka magaca safka ina sii rabtiin be inta ka badan maxaa
هذا في هل سؤال بس نكون يدينا مركب سرنا وجواب ماشي ساكو مغني ماشي ساكو مغني ماشي ساكو مغني هل بين أدو كدر مالك بين قدرته والله بالله واتكش لاني تو كوش ما أبوه كوش جاي أديك دمشي أديك إدرتي وحنا كريه تري ناتا هوس حافظنا دبق كوسيسو أديك كريسان وتجي أديك كسو قاده wax badan ma maqneen aniga gowra ku dhaay cuntii kari maaman ii raadinaysa aan shaqayga soo risiinays maskaxyada fir baa u leeyahay ila hada hada waxa u baanta ishay marka way tan waxa shay waxa u baanta ishay oo dhaado okay waxa u baanta ya dasotade تو سocota wixii kari la dhahan karina jikada u socda aan buuqi qaylo mar waa buu horreey gabdho guri isku keen jiray